markale hawadeedii ka leenahay haddii aynu ku bilowno faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dhacdo xanuun badan oo qoys Soomaali ah ku qabsatay gudaha magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar kadib markii iyaga oo wada dhintay lagu dhex tagay gurigooda. Qoyskan oo ka koobnaa ilaa 6 qof ayaana sidoo kale dhammaantood geeriyooday kadib markii ay ku qabatimeen gaas yiilay gurigooda oo ay ka seexdeen isagoo furan. Wararka ayaa sheegay in qoyskan la waayay warkooda maalintii Khamiista ahayd kadibna Sabtidii shalay meydkooda laga helay gurigooda oo ku yaalla caasimadda Masar. Mid ka mid ah ehelada marxuumiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay sida wax u dhaceen iyo tirada kooban ee markaasi dadka iyo tirada ay ka koobnaayeen dadka dhintay oo isugu jiray carruur iyo dad waaweyn. Waxa uu sheegay in tani ay tahay gaaska uu gurigooda markaas ku furmay isla markaana baaritaanada la sameeyay ay ku ogaadeen. Booliiska Masar ayaana sidoo kale ku howlan dhacdadan waxaana uu sii wadaa baaritaano dheeraad ah oo ku aadan dhacdadaasi oo si weyn u qabsatay baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahintaba. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka. Ugu horreyn, Sheekh Shariif ayaa si adag uga hadlay xiisadda u dhaxaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, isagoona taageero weyn iyo garab istaag u muujiyay Axmed Madoobe. Shariifka ayaana sidoo kale ka hor yimid tallaabada militari ee qaaday dowladda dhexe isla markaana ciidamada lagu geeyay deegaanada Jubbaland, waxaana uu tilmaamay in arrimahaasi ay sababi karto in dhiig badan uu ku daato. Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday soo qabashada Axmed Madoobe kadib waaranka ay u jirtay dowladda federaalka, isagoona tilmaamay inuu u arko arrinkan qalad maadaama uu waqtigeeda markaasi uu ku qabtay doorashada maamulka sida uu sheegay. Sidoo kale waxa uu Sheekh Shariif uu sii raaciyay dowladnimada waa heshiis bulsho, dastuurka la isku wada waafaqsan yahay iyo sidoo kale in dadku ay isku aragti yihiin. Waxa uu sidoo kale Sheekh Shariif uu dowladda ugu baaqay inay ka waantowdo tallaabooyinka qaarkood oo ay qaadayso haddii aanay joojinin ay dhibaato kala dhici doonto. soo dhan marka la isku soo duubana hooda iyo xalka mashaakilka dhexdooda ka jira si gaarana uga shaqeeya dowladnimada sida u dhisan tahay iyo sida u shaqeynayso. waxaan la soconaa baarlamaankeena wuxuu ka kooban yahay 2 aqal. labadaas aqal waxay isu imaan karaan xilliyo gaar ah. xilliyadii dambe waxaa la caadeystay 2 aqal si joogto ah inay wada shaqeeyaan oo waxyaabo check and balance inay sameeyaan ay ahayd ay hal mar ka wada shaqeeyaan. taasna waxaa lagu qarinayaa kooram la'aanta baarlamaanka ka jirta oo runtii arrin fiican aan ahayn. waxaa soo dhan marka la isku soo duubana ujeedada laga leeyahay waa doorasho ruux kaliya uu og yahay sida uu dhacayso iyo waqtiga ay dhacayso iyo cidda ka faa'iideysa. taas oo la wada og yahay doorasho kasta oo si khaldan looga shaqeeyo natiijadeeda iyo ayadoon waqtigii iyo teeramkii dhammaanin inay mugdi dhalisay. marka hore sidaan wada ognaa maamul goboleedada iyo dowladda dhexe hawshan ayaga ka soo shaqeeyay laakiin waa ku kala aragti duwanaadeen. Puntland waa ka baxday, Jubbalandna waa ka baxday. su-aashu marka waxa waaye haddii hay-adihii soo abuuray sharcigan ay ku kala aragti duwan yihiin oo ay ku kala fogaadeen oo midnimadii dalka ay khatar ugu jirto, maxaa faa'iidaha ku jira in laga sii doodo oo baarlamaanka lagu mashquuliyo? madaxda dawladda
see ku dhici kartaa inay dhahdo mas-uuliyaddii la saaray inay intay iska iloobaan hebel miyaa diiday maamul hebel miyaa diida ka soco oo maanta ay soo gaarto in ciidamadii qaranka ee loogu talagalay inay difaacaan dalkan iyo dadkan iyo diintan oo ay mataqaanaa la diriraan al-shabaab maanta la isu adeegsanayo ciidamada kuwa Jubbaland jooga oo hore u joogay iyo kuwa hadda la geeyay labaduba waxay ka tirsan yihiin dowladda federaalka in marka labadoodii la isu diro oo la abuuro xaalad dhiig ku daada kara waa xaalad mas'uuliyad darro ah baahi loo qabo ma jirto ciidanka dowladda meel kastoo loo baahan yahay waa la geey karaa laakiin waa inay caddahay maslaxada loo geynayo oo difaacaya inay caddahay dastuurka ciidanka iyo dhaqaaluhuba waa saddex shay oo dowladnimada u ah asaas marka qaabka ay u shaqaynayaan iyo qaabkay u socdaan waa inay caddahay waana waxyaabaha dareenka ay ka qabaan dowladnimada Soomaaliya inay ka kici lacda dastuurka inuu qofku wax rabo ka sameeyo dhaqaalaha dalka qofku wax rabo inuu ka sameeyo ciidanka qofku wax rabo inuu ka sameeyo waxay abuuraysaa kala shaki waana tan hadda taagan dhibaatada hadda taagan waa ogtiin maanta marxaladda caatifadeed ee dalka Soomaaliya dhamaan ka jirta dalkan wuxuu soo maray duruufo kala duwan wuxuu ku jiraa kabasho wuxuu ka gurguuranayaa xaaladihii adkaa iyo dagaaladii sokeeye wuxuuna u socdaa dowladnimo dastuur in laga hadlaa wax fiican laakiin iyadoo dastuur laga hadlaayo in dana shakhsi ay soo galaan oo keeni kara in la kala fogaado oo dalku kala fogaado arrintaas arrin wanaagsan ma ah waan arrin nasiib darro ah waxaa la ansixiyey guddi aan soo marin waxyaabihii loo baahnay guddi doorasho waa inuu dadka u dhaxeeyo waa in lagu kalsoonaan karo qodobka labaad waa arrimaha doorashooyinka doorasho qof iyo cod wax ka fiican oo laga shaqeeyaa ma jiraan laakiin horta shaqadeeda ma noo socotaa amni ahaan shaqadeeda ma socotaa bulshada midaynteeda ma socotaa ilaan bulsho midaysan oo heshiis ayaa wax dooro karta dastuurka iyo sharciyadii loo baahnay mana loo diyaariyey axsaabtii iyo arrimaheedii meel fiican ma noo marayaan maanta meel sanduuq aan dhiga karno oo doorasho aan ku geli karno cod aan ku dhiibi karno ma jirtaa waxaan u malaynayaa jawaabtu inay cadda idan maan ka hadalno waxa suurtagal ah wan muuda wax fiican waqtigeeda la gaari doona in laga shaqay u baahan tahay Soomaaliya oo dhan ay u taalaa laakiin waxa suurtagal ah oo ka duwanaa kara doorashooyinkii hore oo soo dhacay cid xiisa u qabtaa ma jirto kulli aniga inta aan ogahay siyaasiyiin xiisa uma qabaan laakiin waxa la rabaa in la isweydiiyo maxaa bedeli kara waxa bedeli kara oo la gaari karo maxay yihiin oo laga wada shaqay karo doorasho one man one vote na sida aan wada ognahay waxay ka dhacdaa dalal nabada waqti dheer ku soo jira systemkooda uu fadhiyo maxkamadii dastuurka oo maanta haddii la isku qabto doorashooyinka dhihilaad sax waa iyo sax ma ah nooma dhisna guddiga adeega dastuurka nooma dhisna doorashada ka dhacda hadda Jubbaland waa sax iyo waa khalad cid dhihi lahayd maxkamadda dastuuriga waa mana noo dhisay yaa hortaagan cid hortaagan waati maamul goboleedyada dowladda federaalka hal shay u furay waa soo gafeen marka waqtigooda la gaaray inay dhahaan doorasho aadaysiin doorashadaas waxaan rabnaa doorasho daahfuran oo xura oo xalaala oo waqtigeeda ku dhacda oo dowladda ay korjoogta intaasay lahayn waa soo gafeen intay ka shaqeynayaan waxay ka shaqeynayaan doorasho ma aadi kartin waa iska joogaysiin war in la iska joogaa waa sharci darro qofkan waqtiga waa ka dhammaaday sharci ma kordhi kartid adiga dowladda federaalka ma sii karto mandate cusub oo aan loo dooranin maamul goboleed meelay ku qorantaa lama arko waa khalad marka kii yiri doorashaan galay in la yiraahdo la soo qabto waaran loo jaro kii kalena la yiraahdo sidaada ku joog hadaa amustana tan oo kale kugu dhacaysa dowladnimo kuma shaqaynayso dowladnimadu waa heshiis bulsho dastuurku waa heshiis bulsho oo ay tahay inaan wada ilaalino haddii dowladda federaalka ay ku tumanayso dastuurka dadka kale ma ixtiraamayaan
marka waxaan rabnaa arrimahaas guracan dawladdu ay ku hawlanta ama dawladda federaalka ay ka shaqaynayso in la joojiyo dalkan baahi waxa u qabaa dadka Soomaalida inay wada jiraan sharciga in la wada ilaaliyo gacmaha in la isqabsado ayaa loo baahan yahay maanta xalka Soomaaliya waxa laga raadiyay dawladaha dariska Soomaalidu xilli hore ayay ka soo gudubtay meeshaas 2012 laga soo gudbay maxaa keenay waxa keenay go'aanada aan laga fiirsan oo ana iri ku dhisan oo danta shakhsi ku dhisan ayaa keenay waxaan wada ognahay ciidanka hadda la geeyay Jubbaland Basra waxaa jooga shabaab waxaan u maleynaa meelo ka dhaway joogaan in meeshaas ciidan loo daabulo waa iska gara kartiin inaysan ku dhisnayn aragti dawladnimo iyo aragti nadiifa iyo aragti fiyo inaysan ku dhisnayn waxay abuurtay meeshii ciladii Soomaalidu ay lahaayeen ee qabyaaladda inay dib u soo noolaato qabyaalad iyo dawlad meel isnama galaan oo wada ogna dalkan waxa u baahan yahay cadaalad dadkiisuna waa ka soo daalan qabyaalad waa ka soo daalan waxay ooman yihiin waa dawlad cadaalad dhammaystiran ilaahay subxaanahu wa ta'ala laga helaa laakiin in la isku dayo inta la kari karo cidii doorasho samaysanaysa waxa lagu leeyahay in la yiraahdo doorasho cadaalad oo laga wada qayb qaato samee marka maanta inuu gar leeyahay mid waqtigiisa dhamaaday aan doorasho gelin oo uu gar daran yahay mid doorasho qabsaday runtii waa xisaab cusub oo aanan hore u arkin waxay ahaaday dawladda dhexe inay dhiiri geliso doorashooyinka haddii marka sidaan ay ku socoto xagee doorasho qof iyo cod ka dhacaysa su'aashu waa taas ilaa sanduuqa doorashada waxa la rabaa in la geeyo meel walba mas magaalada Muqdisho wasaaradda waxbarashada ardayda iyo macallimiinta kuwaas loo qabana warkana soo gaaray waa kaas taasi doorasho ma waxaan rabnaa doorasho sideedaba in laga heshiiyo loo baahan yahay sharciyada doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka iyo waxa la xiriiro dhan dadka danaynaayo oo raba dalkan inay hogaamiyaan waa inay joogaan waa inay tala ku leeyihiin sharciyada la baabi'iyay ama guddiyada la kala diray ama sharciga la laalay waxa u maleynaa inaa wada ogtihiin xilligii madaxweyne Farmaajo la diyaariyay annagoo mucaarada in badan ku leh gudoomiye Maxamed Mursal guddiyaan u diri jirnay wala la shiri jiray waxa la qaadi jiray ra'yiga aan qabno waa lagu diri jiray kii mucaaradku ay in badku ku lahaayeen oo madaxweynaha hadda jooga oo kamid ahay waa la iska dhigay mid cusub la keenay waxaana lagu marsiiyay hab mugdi ah oo aan hufnayn oo shaki badan abuuray oo maanta xaaladda aragtaan dalka galiyay daan laga fikirin tilaab kastoo la qaado waxa ka dhalanaya waxa imaanaysa meel aan habboonayn wixii inay ku soo dhamaadaan marka waxaan rabnaa aqligu inuu soo laabto ummadda Soomaaliyeed maanta jiha wareer iyo madax wareer diyaar uma aha waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno waxa suurtagal ah oo qof walba Soomaaliya oo raba inuu wax doorto ama la doorto suurtagal oo ku qanci karo waana wax laga shaqey karo waxa la yaab leh marka dadku dhahaaya waxaan rabnaa doorasho toos ah iyo doorasho qof iyo cod oo haddana la dhuumanayo la cararayo doorashada oo haddana raba inay dadka ku eedeeyaan doorasho qof iyo cod la diidan yahay doorasho qof iyo cod waa la ogol yahay miiska keena aan aragno sida u dhacayso guddiga qabanaya meelahay ka dhacayso sida Puntland loo geey karo sida loo geey karo maxaan ku yiraahdaa Jubbaland sida loo geey karo Galmudug sida loo geey karo masqaana Koonfur Galbeed sida loo geey karo Hirshabeelle aan isu sheegno yaa doorasho galay dadka doorasho galay waa kuwee تفاصيل أوبانت أحزابت وحال سعوتين سد حزبية الوسوكو دل لغا شقينا إلا الديمقراطية وأحزابتي سيلا سد حزبية الوسوكو وجددنا أي تهي هل حزبي
iyo laba xisbi oo xisbigaas farac ka ah in la samaysto oo lagu boobo doorashooyinka arrimahaas arrimo fiican ma aha marka waxaan rabnaa xaaladda caadigeeda in lagu soo celiyo marka ugu horreysa ciidamada dawladda waa mas-uuliyad wiilal yarar iyo gabdho dhalinyaro ah oo u yimid qarankooda inay difaacaan in kuwa kale oo walaalahooda dhiigooda inay daadiyaan loo diro iyadoo khilaaf siyaasiya laga jawaabayo sax maa arrintaas wiilasha iyo gabdhaha waxaa loo diyaariyey cadowga ummadda soomaaliyeed ee la wada yaqaano ee calaamada leh ee meel walba jooga in looga hortago jubbaland waxay qayb ka tahay dowladda federaalka haddii isfaham xumo ay timaado waxaa la rabaa hab dowladnimo in lagu xalliyo kaasaa la rabaa laakiin wuxuu inay gaaraan meesha hadda ay gaareen arrin saxa ma ah arrintaas hadda dhacday dalkan weligeed kama dhicin haddii maanta maamul goboleed aad tiraahdaa la soo xiro oo waaran u jarto oo ciidan u dirto maxaa dhacaya ii sheegi kara waxaa dhacaya in laysdilo wax kaloo dhici kara ma jira marka in laysdilo guusha ka imaanaysa maxay tahay waana ognaa dalkan sida isu saaran yahay yaa reer hebelay waxaan ahayn miyaa ka imaanaya yaa reer hebelay ma ka guulaysan karnaa kuma guulaysan karno 30 sano la soo dhaafay soo kama dhergin yaa reer hebelahay meesha ayna geysa sooma arkin sooma inaan joojino waa inaan joojinaa qofkii doorasho qabsaday waa qabsaday halkaasay ku dhanta waxaa la rabaa kii aan qabsan in la qabso hadda weli dawladda waxaa u furan maamul goboleedyada dhammaan inay tiraahdo doorashadiina qabsada doorasho xur oo xalaal ah noqoto waxaan rabaa laba shay oo muhiim ah inaan sheego mid waxa waaye in la yiraahdo doorasho hal la mideeyo iyo doorashada hal la saxo labaduba waa fiican yihiin sooma laakiin labada tabarteena waa yartahay hal mar kuma samayn karno waxaan ka samayn karnaa hadda doorashada hal la saxo oo doorasho nadiif oo xura ha laga dhigo arrintaas ma la kari karaa mise lama kari karo waa la kari karaa maxaad u malaynaysiin marka dowladda federaalka hadday dhihi lahaayeen doorashadaan saxaynaa waxaan la diriiraynaa corruptionka waxaan rabnaa doorashada xilligeedu inay ku dhacdo maamul goboleed kasta laakiin doorasho xura oo xalaal inay noqoto ma cid diidi kartaa jirta ma jirto in la mideeyo waxay ku imaanaysaa xilli dambe marka wax israacaan oo kalsooni timaado ayay imaan kartaa haddii loo baahan yahay laakiin aniga waxaan qabaa doorasho kasta inay xilligeeda dhacdaa ka fiican in la mideeyo sababtan waa idin sheegaa capacity-da dawladda waa koobanta in marka dawlad goboleed kasta mar kasta la dul istaago hal mar oo la fiiriyo doorashadaas si u dhacayso oo la xaqiijiyo inay doorasho sax tahay taasaa ka fiican dalkan sidaan ah ayaa doorasho hal mar gelaya arrin غير واقعي waqti waa qurxan tahay waa fiican tahay laakiin ma la gaari karaa su'aasha taala siyaasadana ciladeedu shay aan la gaari karin oo suuragal ah oo qurux badan maalin walba inaad ku celiso oo haddana aadan sameeynin annaga haddaan Soomaalina ahna cilada noogu weyn waxa waaye hadal qurxan waa naqaan laakiin ficilka qurxan dhib uu nagu yahay marka inaan israacino maxaa suurtagala iyo maxaa haboon waxaa suurtagala doorasho xuraho xalaal in laga qabto maamul goboleedyada kadibna doorashada weyn ee dhaxal laga heshiiyo doorasho xuraho xalaal ay noqoto waxa ay noqonaysana laga heshiiyo
barqa wanaagsan ayaad degeysanaysaan dhegeystayaal hiran weynna waad nagala socotaan fmta sagaashanka magaartis ayaa si toos aad nooga maqlaysaan beledweyne iyo sidoo kale deegaanada ku gadaaman ayaad naga dhegeysanaysaan markana waxaynu aadi doonaa qodobka dooda ee barnaamijka barqa wanaagsan waxaana uu sidoo kale uu ku saabsan yahay qodobkeena maanta madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed muku saxan yahay eedeymaha kala duwan uu u jeedinayo dowladda federaalk soomaaliya ee ugu horeyso dowladda federaalk soomaaliya ciidamada ay geysay deegaanada maamul goboleedka jubbaland waaranka soo qabashada ee loo jaray axmed maxamed islaam axmed madoobe arrimaha doorashooyinka qofkii codka ee dalka iyo sidoo kale eedeymaha kale u jeedinayo dowladda soomaaliya madaxweyne sheekh shariif muku saxan yahay waa qodobkeena dooda ee barnaamijka barqa wanaagsan eber 66 ayay si toosa barnaamijkeena kala qayb qaadan karaan dhegeystayaasha aan soo dhaweeyo dhegeystaha ugu horeeya qadka telefoonka ku jira ee doonaya inuu barnaamijkeena kala qayb qaato soo dhow السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ويراوي. waa kaa qaaday magacaaga halkaad nagala soo xiriirayso way hayqadka telefoonka ayuu ka baxay dhegeystayaasha waynu kasii gudbaynaa dhegeystayaasha kale ayaan jaaniskaynu siin doonaa iyagana doonaya barnaamijka inay nagala qayb qaataan aan soo dhaweeyo dhegeystaan kale الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga halkaad nagala soo xiriirayso magacaygu waa Cabdullaahi Yuusuf xaafadda Kuushin. cabdullaahi oo soo dhow kuushina nagala soo xiriiraysaa walaalayaal qodobka dooda waa la socotaa si fiican. waaya u gudagal waxaan leeyahay shiin Shariif oo ku sahan yahay boqolkiiba boqol uu ku sahan yahay sababtoo ah ciidan oo dowladda federaalka Soomaaliya oo maamul goboleedkiina oo nin kale ciidan wato oo madax oo la dhihi karo kaale imaam oo lagula heshiinin garaa lagula gala iskooda hadalka furan caadiga sababtoo ah ciidamada oo loo diyaariyey in ay dalka iyo dadka iyo diintooda difaacaan oo magaalkooda oo loo geynayo laga soo horjeedinayo aad iyo aad ugu qadiin dowladda Soomaaliya waaya laakiin marka loo eego dowladda xaq bay u leedahay soo maaha in cid kasta oo ka hor imaato go-aankeeda inay tallaabo ay ka qaado maadaama axmed madoobe markii horeba loogu baaqay in uu joojiyo doorashooyinka miiska wadahadalka muqdisho dib ugu soo laabto balse uu ka dhagaadeega marka dowladdu way ku saxantahay soo maaha go-aankaas marka loo eego markii loo eego waa ku saxantahay sababtoo ah ninkan haddii aydan dowladda nimida ku qaldantaa sababtoo ah ma dhihin miiska wadahadalkii ma saasa ku qaldaneed doorashadaas qabata ku qaldantahay labadii guri kusoo gabagabeysay doorasho la faafiyey maahan micnaha ku qaldantahay ma in la dhaane taasna way ku qaldaneen dowladda waa garta laakiin intuusan doorashada qabsanin ee dowladda u yeertay oo ay dhahday miiska wadahadalkii ma shirka golaha wadatashiga qaranka kasoo qayb gal tabashadaadii waxyaabaha cabashaa oo aad qabtane miiska soo saar marka axmed madoobe oo uu ka dhaga fureysa marka laakiin tallaabadii dowladdu ay qaaday marka dhinaca kale loo fiiriyo waa tallaabo sax soo maaha tallaabadii qaaday dowladda markii si loo fiiriyo tallaabo militariya qaaday laakiin way ku qaldantahay boqolkiiba boqol way ku qaldantahay laakiin hadda sanadkan in kastoo loo taagan yahay anaa awooda anaa amiira maamul goboleedka anaa ka taliya cid wilaadan oo camal hadal faray la soo geli karta maan waxaa rabaa kuminitainta laakiin dowladda midaas ayadana way ku saxan tahay inay nin kasta oo dowladda amarkeeda ka hor imaadaa inay soo qabataa way ku saxan tahay boqolkiiba boqol waayahay aada umahadsan tahay waynu kaaga mahadcelinaynaa si wanaagsan aad barnaamijkaa nagala qayb qaadatay dhegeystayaasha kale ayaan iyagana jaaniskaanu siin doonaa ee doonaya inay barnaamijka nagala qayb qaataan aan soo dhaweeya dhegeystaan kale haddii una maqlayo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaagii deegaanka السلام عليكم على عبد السلام يا عبد الرحمن الله السلام يا يا مدام المسلمين هاجرهم في بلدنا. waan kaa qaadnay soo dhow barnaamijka waa la socotaa waxaan walaalkay aad ula socdaa. u gudagal walaalkay horta hadii fiiri xawaaye Soomaali horta wixii heer la gaari lahayd dowladda ugu dhalalaada hadda waxa waaye walaalkay dowlad markii dowladda waxay dowlad u tahay shacabkii dowlad u tahay dowladda iyo shacabkana inay wixii fiican ay isla qaataan wixii xun ay iska furaan way fiican tahay axmed madoobe maxaan ku sheegay shirka hadda oo ayaa hore ka baxay maahana shirarkii ka horreeyay dhan wuxuu ka xariiqaya uu ka ansixinaya hadda markay doorashadiisa soo dhawaato banihiisa gaar uu ka dhex aragiyey doorashada inuu qabsado oo qof iyo cod aan la aadin ayuu arqaladahaas ugu sameynaya ma fahanti dowladdana inay ciidamo maamul goboleed ha noqoto ilaa iyo raas cadeeraas doonaysa ka dhexayso inay ciidamo inay kaygeyso amnigooda ay sugaan iyaga ciidamo ay geyso xaqay u leedahay oo ciidankay u geyso meeshaas horta maba la dhihi kara basaatanka qof aqli leh oo aqligeeda u shaqeynaa ma dhihi karo waa
gartay midda kaleeto axmed madoobe waxa waaye markii la tashanaayo dadku waa talada waa laisla weydaarsadaa markii la weydaarsadaa kadibna dadka dada taladiisa ay gooni noqon kartaa haddii laysla falaqeeyo oo qofkii waqti uu kaaga bato oo carabka dadka oo kale uu kaaga bato ayaa la raacaa axmed madoobe keligiisa talaanka qaatay 15 sano iyo hadda 5 sano hadda ka dambaysa rabaa inuu kursi iska fadhiyo oo dadkii kaleeto oo ehelku ahaay kursiga wax ka lahayn oo muxuu haytay dadka la qusay waxay sheegaan waaya axmed madoobe markii uu muqdisho tagay oo shirkii golaha wadatashiga qaranka uu ka qayb galay dowladdu waxa uu ka dalbaday dowlad goboleedyada inay doorashooyinka aadaan kadibna dib la isugu soo laabto muqdisho oo la wada hadlo mid way ku ficnaa walaalkay isaan ina muxuu haytay sanadkan doorasho qad iyo codom aadi karna maamul goboleedyada doorashadooda ha qabsadaan markay qabsadaan laga wada shaqeeyo sanadka soo socdo sidaan doorasho qad iyo cod aan ku aadi lahayn shabaabna aan dalka u xuraynahay in la isla qaataa way ficnaa laakiin aniga waxaasoo dhan inuu muuqda laakiin sayda in muuqato adduunka dhan waxaa waaye waxay soomaali la socolaada dowladooda dhalalaada intaasaa kamid ah qofka kadii sayda qaadata maxaa weligaa misooka maqburaan ku jiraynaa iyo dagaal waa gartay walaalkay taas qalad ay ku tahay hadda madaxweynaha sheekh shariif sheekh axmed hadalkiisa waa maqlaaya in madaxweyne dhan oo hadda kor dalka soo hogaamiyey oo maxaa maamul goboleed qaldamo inuu maanta u hadaliyeeyo oo taas ku garab istaagay qalad ay la tahay asigaba hadda dalka inuu mar labaad inuu soo hogaamiyaa dhici karto oo madaxweyne u noqdo ma fahanti waa gartay marka aragtida waxaa qabtaa waarankay dowladdu ay soo jirtay ee soo qabashada qadda axmed madoobe waa taageeraysaa wallahi inta la soo qabto weliba dadka jira in lagu rido aniga sabaabo sidaa wax kaleeta siday ugu quus qaataan ma maqli jirtay sidii weysha baree dibiga ha quustaan sidaasoo kaleetaa la rabaa inuu qofku quusto waayo anaka burbur iyo maamul goboleed iyo xun anaka hadda hirshabelle ahaan kasoo qabo walaalkay dib ka jira waa aragtay waxaa dhib yeella waa aragtay dadka qabiilaadka iyo laysku dira dagaal meeshii ugu horreysay uu ka kacay gobolka hiiraan ee xeerka ogeeday dadka gaarsiiyeen haddana waa dhibaata laga shaqayhaya wilishii shalay isxabad oo had dhinaca ka ridaya bardi laisku horgeehaya dhibaata laga shaqayhaya waxaa weybana wareeriyaanba walaalo maamul goboleed oo muxuu haytay ama ha ahaat madaxweyne dalka soo maray ama mid kasta ama mid kadib shaqay doone mid kastaa dalkiisa qaasoo fiirsahaya ama wiidan kasta maka shaqayhaya waayahay aada u mahadsan tahay waynu kaaga mahad celinayna aragtidaada iyo sida wanaagsan ee aad barnaamijkan nagala qayb qaadatay dhegeystayaal dhowr ayaa doonaya inay barnaamijka nagala qayb qaataan oo khadka telefoonka si toosa ugu jira dhegeystaha kale ayaan soo qabanayaa markana soo dhow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso cilmi sugaal miya cilmi soo dhow barnaamijka waa la socotaa waa la socdaa waay ha u gudagal iyo waxaan leeyahay dadka horta Soomaali waa walaal waa wada dhashan yacni meel kastay joogaan ay wada dhasheen hadda waa baahan yihiin in yacni la kala dheereeyo la kala fogeeyo gacmo isku dhow isku soo hafaya mar waliba isku hiloobiya in la kala dheereeyo waa xaaraan magaran waa gartaa yacni haddii horta la goyn karo xal qodob horta laga gooyo baa dhihi lahayo kuteediana lagu soo dhaweeyay maamul goboleed horta xalna la dhaafiyo haddii la awoodo taas baan oran lahaa magaran waa gartaa sababtay tahay yacni qabiilisi waa hore lasoo dhaafo ama 50 sano ama 30 sano ee jirib ka hor lasoo maray ayaa lagu laabanaya dib lagu noqonaya burburkii bulshada ayaa haddana dib u bilaabanaysa maamul goboleedkan markii la sameynayay dowladaha caalamka iyo dowladda federaalka waxay xal u arkeen dadku in gobol gobol la isugu xiro oo ay horumarkooda iyo nabadgelyadooda iyo xasiloonidoodu ay ka shaqeeyaan dowladda dhaxan ay hoos tagaan marka dhinaca kale marka loo eego soo sax maahan in la sameeyo oo laba gobol iyo saddex gobol in la isugu xiro oo markay isku xirmaan kadibna ay dowladda dhexe ay si toos ah u hoos tagaan oo ay dowladda ay la shaqeeyaan okay dhammaan iyada naftirkeeda in la isku xiraa gacmo furliga waa isla wadaagaan haddii aad dareento yacni markii hore sana la yiraahdo doorasho qof iyo coda anta dalku ay ma shaqaynayse soo qabto aad daneeto ayada nafteeda waa dhibaato sideeda ah dalka marka marka dadka maskaxdiisa in la rogo waa laga fiican yahay waxaan leeyahay dib ha loogu noqdo arrintaas ha la xasiliyo ha la fadhiisiyo yacni golaha wadatashiga waxaan leeyahay arrintaas si fiican ha uga hadlaan wasiirada iyo madaxda waxgaradka way aada waa mahadsan tahay
waxaynu kaaga mahadcelinaynaa si wanaagsan aad barnaamijka nagala qayb qaadateen. dhegeystayaasha kale ayaan jaaniska aynu siin doonaa ee doonaya inay barnaamijka nagala qayb qaataan. waxaan soo dhaweynayaa dhegeystahan kale ee qadka ku jira. halo soo dhow magacaagii deegaanka. abow magaca maxaa soo laydhaa maxaa cusmaan oo soo dhow halkee nagala soo xiriireysaa? marxawaad hay barnaamijka waa la socotaa. aad iyo aad waaya un gudagal. walaal soomaalida way jiraa god tireed qodi haddaad qodi ku dhex tirmo ugu yaha dheereen soomaalida karaa ma garat aha dowladdan xagga shaqo hogaamiyo horta nafta yar waa kusoo noqoyo oo dowladdii horeeto maxamed cabdullahi farmaajo hagaajis oo hogaami jiray labada maamul goboleed oo ugu tunka weyn beni iyo axmed madoobe xasan sheekh lugtiis hayn moogtaa wixii lagu heshiiyey oo dowladdii hore looga hor yimiday aa hadda taagan waa gartay walaala marka waxa waa marka nafsiga meeshii ka soo booday oo nafsiga walaalkaa ka gashaahuna waa dhib badan yahay marka hadda waxay soo taagan tahay marka wixii walaalka shalay dowladdii hore laga galay hadda xasiso kusoo noqdeen wuxuu isku dayay marka inuu ciidamo isticmaalo oo maaragtaa ciidamo kusoo qabto marka taasoo ma ahan awood ma ahana waa nafsi soo noqday nafsi soo degdega wey waa gartay marka aragtaan ma qabtaa marka in dowladdu ay ciidamo ay ku weerarto Jubbaland oo ay Axmed Madoobe soo qabato? taas horta niyo waa horta hal waa suurtageed horta maamul goboleed iyo dowlad qaran horta waa ka isma lahanoo mar walba waxaa kala hiigsanaho dowladdii qaranka waxay qabanaydaho waa u madax furanta horta qof kastaa qabta laakiin waxa ku hoos dura waxa weeye maamulkan ba awooddiin loo sheegtay rabo la soo qabta la rabo taas horta dowladdu waxaan leeyahay awooddaas xooga waa oo ku qaldan tahay inkastoo loo baahan yahay in wada hadal la furo oo loo soo dhawaasho la baadigoobo marka haddaan awood haddaa sheegta wixii yaaba soo kala fogaan iyadoo awal qalad loo sameeyey magac maamul goboleed iyadoo awal qalad loo sameeyo kala qabnaan la sameeyey haddana haddaa awoodaan ku gooba jira taas waxaa si kala fogaanaa mooyaane waxba isku soo dhawaan mahaan waa gartay marka waxaan dhihi lahay haddaan awooddan la raadinayo ciidamada lagu daadinayo halkan Jubbaland wax weyn maahan oo awood haddaan lagu guumaa laakiin waxaan u arkaa aniga taasu inay nafta walaal laga galay tahay marka dhib ma lahana qodi u hoyataan arkayna insha allah waaya aad u mahadsan tahay waynu kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay dhegeystayaasha kale ayaan soo qaban doonaa iyagana doonaya inay barnaamijka nagala qayb qaataan waxaan soo dhaweynayaa dhegeystahan kale ee qadka telefoonka ku jira ee isagana doonaya inuu barnaamijka nagala qayb qaato soo dhow dhegeyste magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriireyso. halo dhegeystaan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعاقي ديغانك waa qaali waxaa wataaka ku nool qaali soo dhow waxaa wataaka nagala soo xiriireysa barnaamijka waa la socotaa haa si fiican waaya u guda gal qodobka dooda ay ku dhegan yihiin inta badan xasanna saakaas dooda ma ahayn waxay aaday sheekh khaliif warkuu ka soo saaray ma saxa mase waa qalad sheekh khaliif khudbadiisa maxaysay u dhacaysa camal oo ahayd dooda nin dalka inuu hogaamiye la rabo meeluu hadda ka hor uu soo arkay siyaasadeeda iyo qaabkeeda inuu hadda kusii dheganaado wax fiican ma waa gartay sheekh shariif inuu dalka hogaamiyo uu madaxweyne noqdo wuu rabaa wax allaale iyo wax khudbadiisa ay ku socotane wax ummadda wuxuu soo kordhinaa maahan in axmed madoobe taageerna lama aamini karo waa gartay dowlad shalay hadduu xasan uu siyaasad uu sameeyey oo axmed jaranjaro ka dhigtay oo meeshuu rabo ku tegay axmedna uu islahay xasan jaranjaro ka dhigo labadaas jaranjaro ay maanta ay ganaha isay surteen ummadda soomaaliyeed waxay fiirinaysaa hadda maanta saacadda la joogo wixii laisla soo mari waa laisla soo mari laakiin maanta saacadda la joogo yaa u danay soomaalida ay fiirinaysaa
maanta siyaasadda xasana ku saameyn badan oo annaga ay nala tahay inuu dalka uu ka bedeli karo ma rabna in waxii lagu sii jiro lagu soo jiro waxii aan wax ka bedelaya uu yiri uu ku sahan yahay sheekh shariifna waxaan leeyahay hal maado oo lagugu ammaano yay kaa dhumin inta nin saatiis leef toshay aad taageerayeen ma ayana kaa dhumin masiir hadda kahor kusoo maray nasiib oo dadka ay kugu ammaanaan oo ninkii dalka ku lagu doortay aad tahay marka ha taageerna ku dhihi lahay nin ilaa adiga mucaaradka ugu soo ahay oo intaana xukuumadad ka soo horjeeday isu sii taageerin intaan ka badan iskaga dhumin waqtiga waayahay aad umahadsan tahay waynu kaaga mahadcelinaynaa aragtidaada iyo sida wanaagsan ayaad barnaamijka aad nagala qayb qaadatay qaybtii aragtida dhegeystayaasha ee barnaamijka farqa wanaagsan ayaa intaa kusoo gabagabeynaya markana waxaynu aadi doonaa xubnaheenii joogtada ahaa